Xujayada Soomaaliyeed ee sanadkan soo gudanaysa acmaasha xajka ayaa ka cabanaya adeeg xumo baahsan oo xilligan jirta xilli lacaga fara badan laga qaatay iyagoo tilmaamay in aysan haysan meel ay seexdaan iyo gaadiid ay adeegsadaan. Qaar ka mid ah xujayada oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa soo bandhigay dhibaatooyinka ay wajahayaan iyagoo sheegay in xilligan uu xajka bilow yahay in ay wajahayaan caqabado fara badan waxayna quus ka muujiyeen sida ay ula dhaqmayaan mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo guddiga xamlada ee arrimahaasi loo xilsaaray. Mid ka mid ah xujayada ayaa waxa uu sheegay in ay jirto gaadiid xumo baahsan iyo hoy la'aan isagoo sheegay in 11,500 oo xujay ah loo sheegay in ay isticmaalayaan 8,000 oo joodari wuxuuna shaaciyay in aysan garanaynin sida ay isku gaarsiin lahaayeen. Arrimaha argagaxa leh ayaa waxaa ka mid ah xujayada Soomaaliyeed oo ku geeriyooday dalkaasi Sacuudi Arabiya halka laba kalena ay dhaawacyo la ildaran yihiin kadib markii uu jiray gaari maadaama ay waayeen guddigii hagi lahaa. Wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Robow oo la filayay in uu wax ka qabto arrimahan ayaa si jaas ah xujayada ugu sheegay in aysan meeshan raaxo u iman hadalkaasi oo niyad jab ku abuuray xujayada. Inta lagu sugan yahay Mina iyo Carafo ay xujayadu sidoo kale walwal ka muujiyeen cuntadii ay cuni lahaayeen waxayna madaxda dawladda ka dalbadeen in ay soo farageliyaan arrintan.